hadduu ilaahay ka badbaadiyay hablaheena Soomaaliyeed cawaankan waa alxamdulillah halkan waa South Africa khaasatan bartamaha magaalada Durban waa ninka hogaaminaya banaanbaxyada looga soo jeedo ama looga soo horjeedo ajaanibta hablaha Soomaaliyeed ayuu ku arkaya iyadoo oo video la duubayo ka bacdina wuxuu leeyahay maxaad meesha ka soo doonteen maxaa wadankiina ugu noqon weydeen iyo kelmada aflagaada ornaanti aad u falqo waxba alxamdulillah cawaankan gibi ahaanba qaabka darana inuu hablaheena run ahaantii aanu waxba gaarsiin sidoo kalena kuwa la socday run ahaantii jirku ay isku gilgilinayeen sidoo kalena ay dirqiisiga hayaanba inay hablaheena Soomaaliyeed ay wax gaarsiiyaan Soomaaliyeed xaal kolkaas maraya meesha South Africa ahayd waxa ka jira run ahaantii dhaqdhaqaaqyo ay naba caadi ahayn hadda South Africa ku sugan tahay fiidiyowgiga soo gaaro walaalayaal khaasatan aad ku sugan tahay magaalada weyn ee Durban iyo sidoo kale agagaarkeeda gobolkaba fadlan bal isku badnaada sala socoteena ilaahay u naxariistee maalin dhaweed laba dhalinyaro ayaa dukaankooda lagu dhex toogtay sala sheegayo mid wuxuu ahaa mid runaantii marxuun in badan jooga South Africa wiilka dhalinyartaana aroos cusub ayuu ahaa subhanallah war meel South Africa xal kolkaas maraya bal Soomaaliya la isku badnaan salaamiya